السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان. welcome to Assis. Topic maanta wuxuu ka hadlayaa hal arrin kelmad keliya laakiin noloshana meelo fara badan ka soo galaysa oo haddaanaynu isaga fiirsanina inagu keeni karaysa stress badan. stress waxa weeyaan yacni wareer badan xagga maskaxda, fikir badan, mashquul badan. taasina hadhowto waxay kugu sii dhalaysaa caafimaadkaagii oo stresskaas wax fara badan kusoo kordhiyo. marka hormoneska stressku wareer badan galaan, qofka khasaaruhu ku dhacaya number 1 waa adiga, maba aha dadka hareerahaga jooga. so haddaanaynu daraasadaynin nolosheena, aynaynu waxyaabaha aada ugu fiirsanin, dhibteeda hadhowto way adagtaysa looga baxo. marka ma ballaarinayo mawduuca because waa mawduuc aad yacni u culus, miisaan weyn leh, laakiin waan fududaynaya si qof kasta insha allah maskaxdiisu u qaadan karayso, uguna fiirsan karto insha allah wixii iminka laga bilaabo. kelmadda mawduuca dhan ku salaysan yahay waxa weeyaan expectations. carabiga waxay noqonaysaa توقع، يعني تتوقع. Soomaali waxaan u malaynaya waxay noqonaysaa haddaan soo dhaweeyo waad filanaysa, yani ku talagal, filasho, waxaas sidaasuu noqonaya. okay, hadhowto markuu noqon waayo sidii aad rabtay, adiga waxa kugu dhacaya waxa laga disappointment, niyad jab, carabi khaybatu amal. waxyaabaha yaryar waa waxyaabaha nolosha dadka dhaawaca fara badan gaarsiiya. maalin kastana nolosheena waynu aragnaa, waynu la kulanaa, laakiin dadkii uma fiirsanayaan, ma fahmayaan haddii aan looga sharaxin dhinaca cilmiga iyo psychologiga iyo waxani, yacni sidai isu soo taxano u noqon karayaan, isaga daba iman karayaan marba. ma garatay? tusaalayaal fudfudud haddaan idin siiyo guys, meel kasta way gelaysa, meel kasta. dadku dabeecad bay u leeyihiin inay wax iska sawirtaan. okay, waxbay iska sawiranayaan, saasay noqonaysa ama saasay ku talageliyeen, wixii bay niyadda gashanayaan. hadhow haddii sidii noqon weydo waxa weeye markuu imanayo niyadjabkiina stresskii sii dhalayo and so on and so forth. tusaalayaal waxay noqon karaysa guys, qof aad wax ka filanaysa, qofku doono ha noqdo. aabayaal haddii ku jiraan meesha ay daawaneen ama hooyayaal, waxay noqon kartaa ubadkaagoo kale. okay, markay yar yihiin weliba maaha, because markay yar yihiin caruuraheena kama filano, ku talagal fara badan kagama galo arrimo waaweyn, because waa caruur. laakiin da-ah waaweyn markay gaadhaan oo kale, haddii sidaynu la rabnay, saynu qorshaysanay, saynu niyeysanay ay noqon weydo, dadka qaar badan, kulligood maaha, waxaa jira waalid aada maasha allah tabaaraka allah maskaxdoodu yacni caafimaad qabto oo wax badan la fahmi karaya ubadkooda, oo la saaxiiba, oo haddii isbeddel ku yimaado arrimihii ay markii hore lagu tala jira wax iska beddelaan, way la socon karayaan, way la muxuu ahaa fahmayaan noloshii. dadka qaar baa jira niyad jabi ku dhaco, ma garatay, oo hadhowto xiriirkii ama cilaaqadihii ka dhexeey, relationshipkii ka dhexaysa waalidkii iyo ubadkan waaweynaaday way xumaatay hadhowto. taasna aad bay u fara badan tahay, waayo waxaa laga yaabaa as simple as bay noqon kartaa, yacni wax fudud oo kale, jaamacaddii ama tacliintii oo qofkii ka saaqday, niyadjab weyn bay waalidka ku keenta. waxay noqon kartaa wax ka weyn, ilaahay naga hayo masiibooyinka waaweyn. ubadku markii waaweynaadaan qaar galaan dee waddo xun oo khalada maraan oo ku fogaadaan. waalid baa jira kasoo jiido, kasoo saaro, u tabca, oo waxaan ku uri kala dabaasho dhibaatooyinka. waalid baa jira ubadkoodii halka isku waayaan oo xiriirkooda khalaas ku kala go-o. taas waa hal tusaale. marka hal iska daayo insha allah expectationka la filanayo. noloshayna kuma kontaroolo, ma garateen?
maxay ahayd inagu waxaanu awood u leenahayuun gacanteena waxaa ku jira inaka waxa weeyaan markay kaa hor timaado mushkiladii sidaad adigu u waajihi lahayd ama xal ugu heli lahayd taasaa gacantaada ku jirtaa miyaad sii waali arrinka ma dhinaca xun baad ka raaci ma dhinaca fiican baad ka raaci ma xal baad u heli miyaad arrimaha dejin taasa adiga ku jirta gacantaada waxa weeyaan waa reactionka aad ka bixinaysid arrinka kugu yimi laakiin haddaad qorshayso ama yacni malaysato wax saasaan qorshaysa saasay noqonaysa ay noqon weydo hadhowto waxay noqonaysa waxaanad adigii keligaa iska saari karayn oo depression kugu keeni karaya tusaale kale waxay soo geli kartaa arrinkaasi tusaale meel kasta noloshaada uu ka soo gelaya expectationka in layska daayo waxaa la yidhaha expectation waa inay jabun buu dhalaa badanaaba haddaad wax fiican filinaysay oo ay kasii fiicnaato maasha allah tabaaraka allah saad rabtay si ka fiican ay kuu noqoto ilaahay kaaga dhigo ma niyad jabaysid laakiin waxa niyad jabka markasta waxay imanaysaad filinaysa si ka xun markaad la kulanto waxay soo dhexgeli kartaa arrinkaasi guurka dadka isqabee wada nool waxay kala filanayaan oo la kala heli waaye niyad jabaa imaado guurku way dhacda inuu ku burburo reerkii halkaa ku baaba'o way dhacda in midkoodi dul qaato oo guurkii sii wado tusaale badanaaba horta raggana way jiraan qaar fiicani oo guurkii iyo ku wada laakiin badanaaba waxay u badantahay dumarkaa wada wax xagga guurka dulqaadka fara badan keena ninkaagii waxyaabo badanaad ka filinaysay markay kaaga yimaadaan waa expectation aad ka lahayd iyo si kaloo ay kula noqotay okay marka iska badbaadiyaan ujeeda nuxurka hadalkayga waxa weeyaan arrinka la yidhaha expectation filasho iska badbaadiya okay waxba ha filanina wax allaale wixii aad qabanaysid noloshaada wax allaale wixii noloshaada aad rabtid inaad ku dhaqaaqdo aad qabanaysid haddii ubadkaaga ay tahay korninkooda iyo ku tacabkooda hadday tahay ninkaad guursanayso hadday tahay kaad isqabtaan baad wada joogtaan hadday tahay asxaabtaada iyo bulshadaada iyo dadkaa la dhaqmaysid hadday tahay shaqadaada iyo dadkaa la shaqaysid hadday tahay wax kasta noloshaada okay adigu ha samaysanin wax expectation ha filan say kula noqonayso waad dadaalaysaa un waa dadaal ilaahay dartiina wax kasta u qabo anigu waxaan jeclahay mabda'a haddaan wax qabanayo ilaahay dartiina anu qabto okay marka anigu qofkan waxba kama filanin alright laakiin hawshaa waxaan u galay anigoo ajarka ka sugaya ilaahay dar ilaahayna u qabanaya marka ma haysto I have no expectations yani wixii qofka igaga yimaada I don't care qofkaas isagaa isxumeeyey ama isagaa dhibtaas u geystay aniga waajibkaygu waan gutay alright waajibkaygu waan gutay waxna maan filanin waan dadaalayun noloshii intaan waday waan dadaalayayo that's it ajarkan waxaan ka sugayay ilaahay subxaanahu watacaala sidaa haddaad u dhaqantaan noloshiin wax fara badan ayaa fududoobaya haddii ilaahay ka dhigo naftiinina waxaad ka badbaadinaysaan stress fara badan iyo disappointment fara badan haddii ilaahay ka dhigo marka arrinkaas ayaan jeclaaday maanta inaan taabto oo mowduuc dheer nolosha bini aadamka oo dhan ayuu saameyn ku yeeshaa dad baa noloshooda dhan niyadjab ku noolo niyadjabkuun isu dhiidhiiba garanayna maaragtay yacni sida uga baxaan ama si ay ula dhaqmaan sida keliyaad ula dhaqmaysid waxa weeyaan ha yeelan wax expectation la yidhaahdo right qof kasta ula dhaqan oo u hagaaji oo u wanaaji dar ilaahay naftaaduna ku jirto ma fahamtay naftaada xitaa u wanaaji dar ilaahay because naftaada xaq bay kugu leedahay haddii caafimaadkaaga tahay haddii diintaada tahay haddii aakhiradaada tahay haddii waajibaadka ilaahay ku saaray tahay taada kasoo bilow alright taada markaad kasoo bilowda aad dadaasho salaadeena waynu tukanaa miyaynu ogna ilaahay inuu inaga aqbalayo in kale waa maya laakiin waynu rajaynaa ilaahayna khayr haddii laga rajeeyo biidni illah lagama waayo xusna danni billaahi waa wax weynu muhiima laakiin bini aadankii waa sheeko kale bini aadanku waa iska daciif wuu dhacdhac badan yahay kun jeer baa afka lagu riday intaad adduunyada ku nooshahay
markaa isku wareerin bini aadam caruurtaada ninkaaga waalidka asxaabta walaalada kullu u dadaalun laakiin waxba ha ka filanin ilaahay ka filo noloshaad way fududaanaysaa stress fara badan oo aan qiyaas lahayn ayaad halkaa ka saaraysaa isma ogin laakiin waxaad dareemaysaa caafimaad fara badan jirkaaga dhan adigu ma fahmi karaysa waxa gudihiisa ka dhaca laakiin number 1 caafimaadka jirkaaga waxa waxyeeleeya waa stress number 1 waa stress hoostu iska cuna guduhu iska cuna timo daataa maqaar ku filan ka soo baxaa keliyuhu dhagxaan iyo dee dhibaatooyin dareema cuno xumo iyo dee waxyaabo fara badan awgood anyways duuduub noloshaada dhan okay u noolow haddaan soo gaabiyo nuxurka noloshaada dhan waxaad u noolaataa wax kasta inaad u qabato dar ilaahay subxaana wa tacaala bis fudayd baad dareemaysaa fudayd wixii khasaare kaaga yimaado bini aadanka danka malihid وما أجر بان كاسوغي إلهي بان أجر كاسوغي وأنا ودان كوناتشي وأذوق حمات الله تمت I don't care شقد إذا معها هذا واحد كمان فيليني ويا ما فهمتين سو إن شاء الله تنولش أفضل الستان أركتيدا وحلا جب بدلو خير بدن بإن شاء الله كإيمانية هدي لهي كريبا مال كستنا قاسان دي شيء تسوي كليسة وفير صدا مال كست إد كستر لردق ميسان sheekada expectations ku soo gelaysaa adiga maanta waxaad fahmaysaa oo ilaa intaasoo sanadood waxaan stresska ugu jiray oo aan u fahmi kari la'aa ilaa niyad jab ay hayo waayo waxaan filanayo sanay iga noqoto halkan aan filanayo sanay iga noqoto sheekadii way isu kay qaban la'adahay markaad fahamto halka laga haystay waad sii deynaysaa okay markaad sii deyso waxaad bilaabaysaa adigii insha Allah inaad iskaga mashquulsho waxyaabaha adigana khayr badan ku soo kordhinaya naftaadana faa'iido fara badan ku soo kordhinaya iyo farxad fara badan insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo so waxaan ku soo conclusion gabagabaynta waxa weeyaan do not expect anything waxba ha filanin dadaalun ajirkana Ilaahay ka sug wixii mushkilad adduunyada kugu keentay ama imtixaani ka hor yimaadana sida adigu uga hortagi lahayd ama sad xal ugu heli lahayd markaasun falowgeed qabo okay xalkun baa la raadiya bas okay mushkilad badhay okay maxaa xalimka xalkii marka la keenay la hagaajiyo ka gudub way daaran imtixaan baa la jooga lama waayeeyo stress lama waayeeyo imtixaan lama waayeeyo madax xanuun laakiin fudaydso adigu nolosha باذن الله تعالى ساسي ان شاء الله فيديو dambe ان شاء الله in ku kala faa'iideysano aad baan idin wada salaamaya dadka cusub ee ku jirin channelkana fadlan ku soo biira ee la kulma videogan maalin khayr qabtan kulligiin rajeynaya assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh